السلام عليكم. ما leedahay kaadi badan afka qalaad waxa lagu sheegaa polyuria waxayna la micno tahay inaad ku noqoto musqusha ka badan sida caadiga ah kaadi darteed dadka waaweyn sida caadiga ah waxa ugu badan ee uu dhigo kaadi ahaan waa 3 litir maalinkii laakiin marka ay jirto kaadi badani waxa laga yaabaa qofka inuu dhigo ilaa 15 litir maalinkii inta badanna calaamadan waxa caan ku ah cudurka sonkorowga ama macaanka sidoo kale waxaa jiri kara xaalado aan badnayn oo iyaguna keeni kara inay kaadidu badato sida kaadi haysta oo shaqadeedu ay badato qanjirka prostata ama prostate-ka oo weynaada ragga iyo marinka kaadi mareenka oo infection uu ku dhaco kuwaan waxay ka dhigayaan mid ku noqnoqda suuliga kaadi daraadeed xataa haddii aysan buuxin kaadi haystu muuqaalkeena maanta ayaan kaga hadli doonaa waxa keeni kara kaadi badnida iyo daaweyntoodaba fadlan haddaad ka heshid muuqaalka like saar subscribe-na ee channelka si aad noo dhiirigeliso muuqaalkana u sii gudbi asxaabtaada si ay wax uga faa'iidaan mahadsanid aan bilaabo fiidiyowga koor sababaha keena kaadi badnida waxaa jira calaamado la socda oo ay tahay qofka in lagu arko waxaa ka mid ah calaamadahaas oon badan dareere lumid jirka iyo fuuqbax kugu yimaada sidaas si la mid ah waxaan meesha ka marnayn in ay badanayso ka kicitaanka hurdada habeenkii xitaa haddaa hurdo fiican aad ku jirto waxyaabaha sababa markaan u nimaano waxaan ku soo koobi lahaa 11 shay ama cudur ayna ka mid yihiin sokorta labadeeda nooc qofka uu haleelo cudurkan waxa lagu arko ayaa ah kaadi badan oo ay la socdaan oon iyo baahi badan xaaladan qofka waxa dhiiggiisa ku badanaya sonkorta haddii ay keliyuhu filtarayn waayaan waxaa dhacaysa in kaadi badan la saaro sidaa awgeed haddii sokor iyo dareere badan yimaadaan waa inaa in badan suuliga gashaa haddii aad musqul badan gashidna waa inaad biyo badan aad cabtaa waxa kale oo keeni kara kaadida badan waxaa ka mid ah diabetic insipidus ama cudurkan sokorta loo maleeyo maadaama kaadida iyo oonka badan ay ka siman yihiin xaaladan waa xaalad jidhka uusan awood u lahayn inuu xadido ama uu kontaroolo dareeraha jidhka waxa ayna ka imaan kartaa jiradan in keliyaha ay cilladi ka jirto ama maskaxda dhacaamadeeda ay wax ka qaldamaan ama buro ay jirto ama infection iyo jug madaxa ay jiraan uurka ayaa isna keeni kara kaadi badan sabab ah in uurka uu keeni karo wax la yiraahdo sonkorta ka dhalata uurka iyo sokor u ekii aan hadda ka soo hadlayno oo yimaada xilliyada qaar uurka dhexdiisa cudurrada keliyaha ama dhimashadooda waa qayb kale oo ka qayb qaadata kaadi badnida maadaama keliyuhu aysan si fiican u shaqaynayn waxaa imaanaysa kaadi ka badan intii caadiga ahayd cudurrada beerka waa dhibaato kale oo sabab u ah inay calaamadani timaado maadaama dhiigga uu ku yaraanayo keliyaha sidaasna shaqada keliyaha ay ku yaraanayso sidaasina ay ku imaanayso kaadi badan cudurka Cushing syndrome ama qofka oo ballaarta calciumta oo badata iyo walwalka ayaa ka qayb qaata imaanshaha kaadi badan sabab ah hormoonada qaar oo qaldamaya ama badanaya dawooyinka qaar khamriga iyo kafeegana waxa ay qayb ka yihiin waxyaabaha keeni kara kaadi badnida in la ogaado waxa sababay kaadi badnidan waxa ay ku xiran tahay in la baaro kaadida dhiigga macdanta iyo qofkan wax uu sheeganayo kuwan ayaa ku furaya wadada lagu daaweynayo qofka inaad daaweyso waxa ay ku xiran tahay inaad hesho waxa keenay si aad u ogaato waxa keenay waxaad u baahan tahay inaad u tagto dhakhtarka kuugu dhow ee keliyaha iyo kaadi mareenka si uu kula tacaalo kaana xaliyo ilaahay idankiis haddii aad isku aragtid guriga adiga oo jooga kaadi badan fadlan iska jooji wax alle iyo wixii keenay ama aad cabtay sida kafeega ama waxyaabaha alkoholka ama khamriga uu ku jiro muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay daawade haddii aad ka heshay like saar subscribe dheh
hana iloobin inaad fikirkaaga noo reebto. Mahadsanid. Muuqaalka inoo xiga.